maanta anigu waxaan arkayaa oo aan hubaa inay cuqaashii halkan ka hadashay iyo odayaashii reer Oodweyne waxay maanta sheegeen oo ay xaqiijiyeen in saxalkii iyo isafgarawaagii iyo khilaafkii baryahan dhex socday xisbiyada ee soo gaaray shacbiga meel ay joogaanba in maanta arrintaasi laga gudbay oo ay dabayda ka dhex saartay oo dadku sidoodii hore yahay oo ayna dib u warwarayn qabaa'il ay gubto siyaasadda iyo isqabsigu aad iyo aad oo mahadsan tihiin sidii quruxda badeed arrintaa uga hadasheen waa tu aynu raaci doono markaan intaa taa ku soo koobo oon hadal dambe in doorashaduna halkeeda tahay dadku waxay isu yihiin isu ahaan doonaan ee jirana ururadu aanay saxal dhex gelin dhalinyarada doorashada waxaa ku darayaa waxa waa dimuqraadi ninka codka badan baa helaya gobolka daadmareen siyaasiga ku abtirsada ee doorasho doonaya ee wax kala ku dara ama calama faraafur waxa leeyahay maanta dhibaatooyinka jira weyn ogna qarannimada la idinka biqi maayo qaranka idinkoo aan weheli weydaan qaranka aan dhisi weydaan dayaaris ayaa kala ku sii daynaysa marka daad mareen jooga la hadlayo reer daad mareen erayada qaarkood ka soo yeelaya saxaafadda ee siyaasiyiintu wadaan doonaya inay tilmaanta dadkan qaataan dee anigu waan garanayaa ka yeeli maayo laakiin dhalinyaradu dee waxaa run bay qaadanaysa maanta qaranku wuxuu u baahan yahay waa difaaca iyo sharaftiisa in la soo celiyo doorashada waxaynu u qabanaynaa nin wala wax tirsanayaba inuu ku bogsado oo aynu foodka ridno oo kasoo baxa aynu wada raacno oo waxa aynala gudboon maanta inaynu yeelno darteed baanu doorashada u gelaynaa oo waxaasoo howla iyo kharasha lagu bixinaya taasina iyo naga qaldame maaha hebel soo baxa khilaaf dhexdeena baynu ku saareen ninkii cawdo baynu ku saarayna ninkii dumarkii carruurta colaad geliyey ee waa layna diiday ee waxba laynoma ogola waa lay maya tukawan baynu ku daweynaynaa taana intaasaan dhigay mahadnaqii oo sheegay dowlad ahaan maxamed kaahin baa sheegay awr laba la siiya kufaan male war waa waajib loo diray waxaan leeyahay waa dhaamkaa ku badan halka biyaha in badan baa laga duuray lacagta ooduna biyada ku baxday ee hirgala weeday ilaa 2 milyan oo dhawey kan hirgale maahe intaana waxaynu ku murmanay maalin walba waardhaam aan qodno iyo meeceel hal raadi waxba ma aha dadku inay biyo helaan baa badan in badan halkan aniga waxaan ogaaday biyaha in laga soo dhaamiyo burco dalka waxaa lagu qaybiyey horumarinta meel walba waxay baahan tahay kii cagaf baahire beerbeeraya ee roob haysta oran maayo u sina oo qolqolo ugu qaybiya tabiya meesha haradan biyaa la siinaya meesha xoolo badan xoolaha dawadooda iyo dhulka oo loo xiro sida maaragtay saaraha burco kale oo dhulka uu ka dhaqmaayo oo hargeysi diiday oo imikareeyay saaraha burco kale loo xiro soo idinkii diiday ka diyaaramay xabadana u riday marka la saaraan sabaan qolo waliba waxay u baahan tahay in loo sameeyo weey ilaa reebel baa waxa loo sameeyo ma kabada jooga kalluun buu baahay wuxuu baahay karaamka uu joogay ee kululayn badan in la siyaaro tirig badan oo uu qaboojiya joojiyo oo carruurtoodu markuu noolaan karaan 45 digrii markay garaacayso cidii ku noolba ilaa qolo gaar meel ku noole hawdka qolo gaar kuma noola badda qolo gaar kuma noola beeraha kuma noola marka waxa la wax biyo lagu exday ma jireen dee halkan waa oo maray riigina uu gaar waayay dhulkana biyo kama dhawaa magaalada Oodweyne bilaan bay horumar weeyeen magaalada biyo ugu horumaray burca looga soo dhaamay see loo noolaan karaya dhexdantaas marka waa waajib faran dalkana in saa loo kala yaqaan duruufaha loo kala eego maanta si aanu soo dhaweysay waxay bedeshay fikrad badan oo la qabay codku waa halkiisa waa laba tiim oo tartamayo midowga adiga yahay way naga xumaato qulqul iyo waxba waliba dhalinyarada soo waa mutacalimiin oo baalka yar eegtay shaydaanka ah ay wax ku soo deynayaan waxa dadku kala gelin oo suurtagal ahayd bay sii deeyeen wadada maqlaya marka maanta soo dhaweyn ma ahayn waxa sameeyay saxalku inuu ka baxo Soomaaliland oo dhan waa tala agoorda ma qaateen inaad mar hore qaataan baa waxa ka saarteen qaranka cadawgiisa inaad tustaan sheekada laga sheegay jiida darad wax ay geeyaan oo ay abiye isru ahaayeen midna ay ahaayeen labada hadda maanta cadayseen
hogaamintii qaranka difaaciisa iyo wanaagiisana inaad hogaanka qabtaan oo howla qaada baa laga rabaa siyaasiga doorashada doonaya taasunbuu ku xidhaanaya taasaanu raacaya insha allahu intaasina waynu horgelaysaa ninka ku beerbeeraya doorasho la qaban maayo kala qabanayo habeerbeeri maalin ay naga adagka doorashadu oo aynu uga taagi darnay dhaqaalaheeda dhibteedu ma jirin laakiin inaynu ku midownaynu doorashada u qaban aynu cadowgooda ugu qoofjoono marka ayaan qashqashaada mariga daba keenin mar labaad waan idin mahadnaqayaa odayaasha iyo degmada dhan gaar ahaanna waxaan u mahadnaqayaa hawryarahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi